salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegnay qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreede waxaa ugu dooro laba qof oo ku qurbaxay shil ka dhacay waqooyiga hargeysa saddexda xisbi ee somalilan oo meel iska soo madoobeeyey taabsintii la dhoobeeriyey ee deegaanka lafarigo dad la sara tegey soomaaliya oo ka helisay jamhuuriyadda iiraan etoobiya oo tuxun ku martay inay iska kala ridayso haabada casab maraykanka iyo buntland oo u tashanaya ooshii warsankeli bakistaan oo gamasyo u dumaysa dalka sacuudiga maxamuud xaashi cabdi oo soo lugooye dar hor leh iyo weliba nabaddii ceerigaabo oo ku jirta caana waan jeclaaya waxaa nacay markay galeen candho dameeraad wararkaasi iyo wararka oo dheeraad ayaanu jahaynaya kusoo dhowaada barnaamijkeena bushaaro shirkadda almustaqbal ee xajka iyo cumradu waxay bishan ku samaysay qiimo dhibis sannadeedkii abidi ugu ballaarnaa taasoo ah $200 oo keliya qiimo dhibistu waxa ay soconaysaa muddo kooban haddaba walaalaha jecel in looga cumreeyo waalidiintoodii dhintay ama dhulyaalka la xidhiidhan shirkadda ah intaan qiimo dhimistu xidhmin adigoo ugu soo hagaagaya lambarrada shashada kaaga muuqda xogaha nagaga soo dulundulcoonaya bariga dhexeeya dalka sacuudiga ayaa sheegayaan ceelka riyaad ciyoon loo daabuli doono sidoo kalena la laba dhigi doono dhiro dhabatada waxay nabtay iyo dhunkaasha la dhacarooriyo ay dembaabaan dowladda bakistaan maadaama oo ay dhowaan daawa dhex martay labada geesood riyaad iyo islaamabad ninka ku magacaaban wasiirka teeriga iyo gaashaanka bakistaan oo hadalisa soo galuubay meelaha ay dadku xogaha ka qadhiidhaan ayaa gabala ka caddeeyay inay gurmada aad u xooggan u fidin doonaan dowladda sacuudiga taas oo hadda bawdyaha isla dhacaysa isla jeerkaadna ka baqa qabta duulaan iyo dabra weerar kaga yimaada reeraha afra istaawiya dooxatada kuwaasoo waayahanba gele la faayay garankarta bariga dhexe isla jeerkaasna duulaan ku dhadhaaray meelaha ay ka mid yihiin dalalka suuriya libnaan iiraan iyo dowladda yar ee qatar kuwaasoo dhammaantoodba goga loo geliya gantaalo mariidaysan oo meel daran laga soo ganay xogaha ayaa intaasii raacinaya inay dowladda bakistaan dhaqaale buuran ka halqabtay dalkan uskaga haysta ee la-eebe uskaga ku maasheeye sacuudiga taasoo ah gibirkii agabarihii lagu ilaalin lahaa maraweynta looga taliyo ceelka riyaad kuwaas oo intii waraabe la korinayeyba hubada darayay isla jeerkaadna kala miisayay wax jidiinka la mariyo beriid la curaagto qaxwo la fuudo iyo darin laga macagmacsiiyo darkan ayaa iska ilaaweyn rag isku maqan yahay islamarkaana goor ay ahaataba la iska dudorogan doono tiiyoo la moodo inay xilligan isla hambabareen maraweynta carbeed oo aanu meel lagu oolin mudac iyo maxaadh wax la yskaga waabiyo amase qof lagu fiiqo dowladda bakistaan ayaa la soo warinaya inay duladada ceelka riyaad geyn doonto warmaha samayda dheer iyo teeriyada lagu baaciyo gantaalaha meelaha fogfog laga soo gano iyadoo dhammaanba ilaalinta sacuudiga loo dhiibay dalkan ku yaala sida tan iyo koonfurta aasiya qolyaha reer ahla sacuud oo ku taamilo qaatay qashkii lagu tumaatiyey reeraha dooxa ayaa ugu dambayn dabada ka galay dowladda bakistaan taasoo ay bideen inay ka yurayn doonto colkan ku soo maqan ee karkarada soo jabsaday haddii aynu u kacno qaaradda afrika iyaduna dowladda etoobiya ayaa mar kale ku dhawaaqday inaanay ka labalabayn doonin oo aanay ka waaban doonin inay duulaan ku dhadhaarto xulubkan iyo dalka ay colka yihiin eritrea taas oo ay waayahanba isu baahiyeen xukuumadda addis ababa ayaa ku doodaysa inay ka shaqaynayso sidii ay taabka ugu dhigi lahayd islamarkaana ay dib ugu soo ceshan lahayd marsada magaalada casab taas oo ka mid ah dhulka loo aqoonsan yahay inay leeyihiin reeraha ceelka asmara nin ku hadlayay magaca ciidamada qalabka sida ee reeraha xabuusheed oo hadalisa soo galuubay meel maajeen lahayd ayaa dhayda ka caddeeyay inay duulaan toosa ku ekayn doonaan xeebaha biyaha badda casagahaasi oo uu tilmaamay inay waayahanba la doonayeen sida ay gacmaha u soo gashan lahaayeen gaar ahaana dhulka gebiyahaanba la weliyo dowladda eritrea waxa uu ku garramay in si doqonimo garad ayaa looga faramuroojiyey isla jeerkaadna looga meersaday magaalada saaran coonka badda cas ee casab taas oo ay qaateen reer eritrea waxa uu intaasii raaciyey ama ku sii biiriyey inaanay maangal ahayn oo aan sinaba loo liqi karin inay reerahan tirada yari baddharan yeeshaan halka ay cidlo ciirsida taagan yihiin uumiyihii aadka u badnaa ee reeraha eritrea ku soo lablaamayey waxa uu tibaaxay in hayiin iyo dayiinkaasi aanay bad iyo biyo dhanaan la'aan karin balse ay ka howlgeli doonaan sidii ay u soo dhacsan lahaayeen isla jeerkaadna ay reeraha asmara uga soo gacan bidixayn lahaayeen biyahan ay ku warwadheen iyo dekadahan iyaga laga dhacay isagoo gebiyahaanba gaashaanka u daruuray inay u kabayladeen gacantogaalayn daandaansi aabi adyad iyo weliba inay reero kale col duldhoobaan dowladda eritrea ayaa sii kordhisay ololaha ay ku raadinayso sidii ay haabooyin u gaadhi lahayd iyada oo markan afka saartay dacalkan iyo dalka eritrea maadaama oo ay si gaara u jamatay dekedda magaalada casab oo ah goob kulaalaysa isla jeerkaadna kaabiga u saaran dhudhubka baabulmandab agahaasi oo ah bogcad ay ka gooshaan amase ka qamaadaan dhammaanba maraakiibta qalaad ee mushaacaysa duleedada biyaha badda cas kuwaasoo bogox iyo bariba isu dhaafaya
haddii aynu jeedaalno Soomaaliya iyaduna xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid noqotay 9 dawladood oo cod weyn ku sheegay inaan labada biyo buuf la sii dayn karin isla jeerkaas aan sinaba cunaleedka saaran ama lagu hayo looga dabcin karin Jamhuuriyadda Gacanka Islaamiga Iiraan kaasoo dhuunta la hayay ama sajidiinka loo fadhiistay 20kii gool la soo dhaafay Soomaaliya oo kuududay madalba wadahayd oo ka dhacday ceelka New York ayaa la jeeni noqotay dalalka Faransiiska, Britain, Mareykanka, Greece, Panama, Sierra Leone iyo Denmark kuwaas oo u codeeyay inaan cunaqabataynta laga qaadi karin reeraha ceelka Tehran. barbarka kale dalalka Ruushka, deegaanyada Danbari, Shiinaha, Pakistan iyo Algeria ayaa gabala ka cadeeyay labada biyo buuf la iska sii daayo xukuumadda gacanka Iiraan. Soomaaliya ayaa noqotay dalka kaliya ee ku hayooda duulka Islaam la yidhi isla jeerkaasna ka hiilisa dowladda Iiraan taasoo la ogaa inay gurmad la soo gaadheen reeraha Muqdisho gaar ahaan xilligii abaaraha lagu kiciyey agahaasi ee gugii 2011. xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale la xasuustay inay ka iisatay dalka Kosovo kaasoo ay ka raacday waddanka ay xulka yihiin ee Serbiya taasoo iyana noqotay xaajo godobeed oo ilaa hadda la garan waayey waxay duulkaasi u soo qaateen amase ay dhabarka ugu riteen. wiilkaad nagala socotaan waa taartiib iyo wararka laga helayo gogashii nabadeed ee uu madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro dhigay degma Ceeri Gaabo ayaa la sheegaya inay xogo ka soo noqdeen iyadoo ay dib u dhacday milaygii ay kulmi lahaayeen dalkii degmadaasi loo fidiyey. golihii wasiirada ee ka soo kici timi lahaa magaalada madaxa Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa ayaa dib ugu baaqday kadib markii ay cudur daarteen inay ka soo boqolaan bariga gobolka Sanaag odayaashii beelaha Warsangeli isla markaana uu shirku ka furmo 20 galkeeshan ay dhox qaadayno. gudida wasiirada ee walaandeynaya nabadda degma Ceeri Gaabo ayaa waxa burka u tuurayay wasiirka wasaaradda looxdhigaalka Somaliland Ismaaciil Ducaale Yuusuf kuwaas oo lagu wado inay dharaarta beriya ka soo hinqadaan magaalada Hargeysa. sidoo kale gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Xasan Jaamac Daade ayaa isla soo quturay inaanay gebi ahaanba wax nabadgelyo u haynin duulka qorsheeya isla jeerkaasna ay soo dhaweynayaan oo Warsangeli. waxa uu tibaaxay inay nabadu imanayso marka la sii daayo ragga ku qabiran degmada Laascaanood haddii laga tegi waayana aanay shaqo iyo shuqul midna ku lahayn wixii intaasi dhaafsiisan. isagana waxaa laga dheehanayay gudoonkii hore ee warjeedada gobolka Sanaag oo aflabadii yeedhay isla markaana ku dhawaaqay inaan laga soo tigsiin doonin wax nabadgelyo ah oo laga horaan qaado gobolka Sanaag iyo degma Ceeri Gaabo. Ceeri Gaabo colaad lagu kala qaxay ka dhacday muddo 12 bilood ah. muddada 12 bilood ah anigoo mihnadeeda saxaafadda ay u adeegsanaya waxaan qayb ka ahaa number 1 ama koobaad ama qaybta labaadba ka galay inaan saxaafadda Ceeri Gaabo ay nabadda ka shaqeyso. Hargeysa inaba saxaafadda laga keensanaya marka aan leenahay dawladda shaqo naga dhaxaynaysa ma jirtoba xukuumadda bal iyadoo halka nabadgeenu saagayso annaga hadday xidhayso xitaa raali baanu ka nahay. waxa uu ku hareentay caana waan jeclaay waxaan nacay marka ay galeen candha dameeraad mad yeelano dulmi heer Ceeri Gaabo annaga heer Ceeri Gaabo isu soo celi karna annaga heer Ceeri Gaabo kala kaxay karna annaga heer Ceeri Gaabo inay isu yimaadaan raali ka oo jeclayn iyo dawladda nagu ixtiraam weeday magaaladii aan joognay inay wax nagala tashadaan oo wax naga weydiiyaan arrimaha nabadda iyo sidaan dadka u wacdigeli lahayn waxaan go'aansaday inaan anigu faraha ka qaado haddii xitaa madheero laygu geenayo waxaan raali ka ahay in laygu xidho. docda kale nabadgelyada iyo deganaanshaha gobolka Sanaag ayay si weyn uga soo jeedaan duulka qorsheele oo iyagu u weeran sidii ay mar laba naftooda ugu soo biimeen lahaayeen gudaha magaalada Ceeri Gaabo oo ay ka raacday wataraqa wari futa dhiigle iyo maxaadii dhiibatay maadaama oo ay halcad ka dhaqaaqeen iyagoo gamna laalaadinaya midna lulaya. in la wadi jirayba waanta la isugu soo muuqaynayo beelaha Dhulbaante iyo Warsangeli ayaa la sheegaya inay ka dhici doonto deegaanka Jiidali. ugu dambeyn beelaha Warsangeli ayaa ku wargeliyay duulka qorsheele inaanay ku soo taanbaabin deegaamadooda iyo dhabaha isku xidha Ceeri Gaabo badan iyo Boosaaso oo ay muddooyinkii u dambeeyay ka afduubanayeen gaadiidka baaliqaateen iyo reerka sida labada dhinac kaasi oo ay ugu dambeysay baabuurkii ay lahaayeen la baqaye. maanta waxaan rabnaa insha Allah tacaala warbixin inaan ka bixino masjid jaamici Aynaba ee muddada sida caadada inoo ahayd aynu marba ka wareysan jirnay halka uu marayo. horasaynu la soconay sanadkii hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu guuleeyay qaybtii hoose oo inoo dhameystirantay oo si wanaagsan loogu cibaadeysto dhinac walba haday aqoon waxbarashadii tahay iyo haday cibaadadii tahay salaadihii iyo haday quraan akhriskii tahay ma sha Allah qofkii wuu arkay inta kalena way daawatay. Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inuu guuleeyay qaybta hore. walaalayaal saa ogeydeen waxaan soo dhagax dhignay qaybtii labaad muddo hadda dhowr bilood laga joogo dhagax dhig ayaynu indhaweydba ka hadli jirnay dhagax dhigaas oo inoo hirgalay. waxaynu maanta ku xijinaynaa dhagax dhigii kadib fayskii hore qaybta sare fayskeedii hore oo maaragtay qaybteedii koobaad ah oo lagu qiimeeyay qiimo ahaan
lacag gaadhaysa $150,000 waa qaybta ay ku jirto macan shubka sare wax walba ay ku jiraan oo qiimaha lagu qiimeeyay ayaan rabnaa inaan ka warbixino iyo wixii aan u hayno walaalayaal lacagta 150ka fillaahi alxamdu $40,000 waa haynaa gacanta ayaan ku haynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala intii la baxday miisaanka xasanaadka ha u saaro waxa kale oo aan haynaa 960 xabo oo sibidha sida aan warbixinta hore u soo sheegnay 3,200 xabo oo sibidha ayaa galaya masjidka marka 900 iyo dheeraadka waynu haysanaa fillaahi alxamdu walaalayaal qofkii kaga qayb qaadanaya sibidh qofkii kaga qayb qaadanaya materialka kale ee galaya waa u furan tahay ilaahina waxaan ka baryayaa jalla jalaaluhu sidoo tii hore inuu guuleeyay uu tanna inuu guuleeyo marka waxaan uga baxayaa walaalkay Sheekh Maxamed Kaariye oo runtii lafdhabartii masjidkan raggii hore uga soo shaqeeyay isaga iyo culimo badan oo hore ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha u saaro maantana ka qayb qaadanaya walaalaha islaamka meel kasta ay kala joogaan u weydiinaya qaybta labaad insha Allah ta'ala ee qorshaha noogu jirta inaanu bilaabi doono gaarsiin doona فليتفضل شيخنا وصلى الله على سيدنا محمد وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ليال وحاينو حلقة أفردنا كما قلنا ولالكين محمد مع الحرسي ووربحين إن جسيي مساجد مسجد جامعة مقالة عينبو ونقلنا قيب قشين باسمه سي طابقة خوسة oo dhamaaday sanadkii hore la furay lagu tukaday ma sha Allah de khayr badan ba in ka socdo masaajidkaasi ama cilmi iyo aqoon iyo salaad ha noqotee iyo quraan lagu baranayo waxaynu halkan u fadhinaa maanta oo baaqi ka soo gaarsiinaa taabiqii labaad masaajidka feeskiisii hore oo aanu doonino inaynu isagana aynu dhameystirno